moodaa warkaas inuu caato gabay waxaanu ku caato gabay qoladii halkan maalintii dhaweyto arrintaa sharciyeed baa la iska horyimi oo qoladayadii tirada yaray sharci ku soo arooraa ama qodob dastuuriya ku soo arooraa kulamada labada gole ee guurtada iyo wakiilada kulmiyo oo Saleebaan ugu jeergareynayay ma jirin fooleelidey sida qodobka 53 ee golaha wakiiladu uu gaarka u lahaa Saleebaan u boobay marka gudaha Soomaaliland saa la isugu boobay warsidee wax laga warramo la garan maayo arrinkaa buunbuunintiisa iyo sida imika xukuumaddu u laba qaadaysa ilada golayaal baa wax fulinayay anigu odhan maayo iyay qaadina 11 maxkamadduna ay naga dareereenay horta Saleebaan iyo afartankii Axmed Tuuriski iyo waxa xil kale ku meelmariya wax inaan iyaga maxkamadda dastuuriga maanta u furo ayin baa naga soo celinaysaa arrinkaa intiina DB World bisla gaadhiso DB World halkeena ka bilaabtay ma iyaga iyo xildhibaanadii ama guurta noqdeen wakiilaha noqdeen ee sharciga intaa leegay garanayeen u bareeray anigu aragtidan xildhibaan ahaan qabo Saleebaan iyo dirkiisiina maxkamadda dastuuriga u furaa weeye kayar iyo maxkamadda kooduna raacaan Soomaaliland waxay gaarsiinaan maxkamad lahayn laakiin inaan anigu ka baqa maaha kiiskaasi wuu taagan yahay saaxiibadayna waxaa kaga rabaa gacan waayo dalkay dan u tahay in marun la arko mas-uul lagu qaado xiltabin ee aanay noqon miskiin baa iskala fuula leh maalin walba ilmo yaryaroo la ilaa xaafad bay shiidaniyo waxaanay sameeyeen baynu arkay laakiinse kuwii ugu sarreeyey markay sidaa u badheeraan ee haddana laga aamuso ee weliba ku luuqeeyaan intaasaa sixisay tuuga cad oo uu garanayo Saleebaan garanayo oo kuwaas sixiyey garanayeen horta taasoo dee aanan tallaabo ka qaadin sababaan u jeegsto imaaraadka uma taalo anigu waan qabaa in dacwadda dastuuriga ee maxkamadda sare ee Saleebaan iyo wixii la ansixiyey u badheerayba إذا واحد عشرين شريني هشيش مبرد وفانتستانتي قبوا هاي هودي الجروب المحكمة أنا وعلى كذا قبوا إلا كان كنت درس شيء اسمعين تسوان أريد كلا إنك هذا كايري بوليسي سؤال كان مرة يسوي حيالك عنوري العربية أيام حالة تيجي ولا يكقرتي سؤالا وعلقولي هدات فيين معقول يراك تعرف يمرج ma suurtogeli karaysaan inaa gaadhaan ujeedooyinkiinan aad ku doonaysaan saldhig milatari oo aad berbere keeni gelisaan haabaa layidhi divergence sharci ama iska soo horjeed sharci ama buuq Somaliland gudaheeda iyo dalka dibaddiisaba strong opposition baa jira baa layidhi adag oo sifaaradihiina ka hor dhacay oo waxaan ka sameeyey Somaliland waxay leedahay bay yidhaaheen sidaan kaga wada hadalnay ciidan argagixiso soo dhex mari kara weydi oo ciddii madaxa qaada iyaga ayaa lagaga filan wixii Somaliland dhaqdhaqaaq ka sameeya horta dee goorta aynu ku biirnay maxamuud xaashaan la yaabanaa markuu lahaa anagu dagaalka dhex kibanihiine dhab baanu ka nahay oo sunniyiin baanu nahay dagaalka yamaneed dhexdeeda ayna dhigee horta ciidamadeena laban ayay siday u hadlayso alcarabiya ka mid noqday maxamiyadda ayaan imaaraadka ee waan laynoo sheegin anigu dee markaan arkay jiriyaddaas say u hadlayso way ku xisaabtantay waxayna dowladda Somaliland waxaan ku heshiinay in wixii arrintaa dhaqdhaqaaq ka sameeya ciidan ku filan oo gudaha warwar kala qabnayna shaqooyinkii laynoo soo diraa u baahday ayaan isleeyahay halkaa nimayo haddii sharciyadda dalka la dhowri waayo dowladnimana ma jirayso dadkuna inuu iska wada niyadtabo maaha laakiinse
anigu waxaan ka baqanayaa cudurkan la yidhaaho paralyska dee waa kan habeen walba la yidhaho cid baa qalajiyey iminka political paralyse baynu ku jiraa haddaad run doonayso golayaal xukuumad waxbaa kala maslaxanin political paralyse baynu galnay iminka wax leeyahay sicirbarar baa jira maaha lacagtii oo hawday oo cid kantarooshiyo waxa lagu xakameeyo mid la weyday ayaa jira cid loo diri karaana ma jirto xukuumaddii kantaroollayna ma jirto bankigii awooddaa lahaana ma jiro markaasaa la leeyahay kol baa la isku qaadayaa sariifla yaroo meel taagan ayaa la yeelanaya waar waxaanu galnay political paralyse haddii aynu doorashadaasi international communitygana wuxuu ka muujiyey kalsooni darro inaanay doorashadaa lafteedu ciddii hirgelinayd inaanay joogin meeshan sidaa daraaddeed anigu ma dardaar werinayo laakiin waxaynu u baahanay hiiteris sida yurub qabowgu markuu dee prismoodka gaadho habeenkii haddaad gamadoo badhinka ilowdo ma winid hiiteris inaynu ku soo noqonno wixii lagu soo celiyaa sallaankiiaanu ka dhacday sallaanka dad ka dhacday miyaad fuuri karaysaa booq sharcigii baad intaas ka dhacday ayaad halkaa taaganta oo weliba kuwii sharsameeyey ka dhaceen wax dhadhala mar haddii talaskii dadku lumay ma soo toosin karaan kalsoonidii dadka 2 sannadood markaa waa bisayskuba haystaan waan la qabaa tiradaasi 2 xildhibaan bay ahayn soo maaha insha allah waanu korri wallaahi bilaahi watallahi magac ilaahay baa ku dhartay waan la qabaa waayo wax dhadhala maanta dadweyne noo hayaa ma jiro mar haddii nigisku surwaalka ka soo dul maro dadarin la iskaga tagaa ma habboon maya we are unable ma qabo inaanu toosin karno dadkii meel baa duntay wallaahi maan kabi karin oo bilaahi kabi karin raggaa waan la qabaa habeenkaana telefoon baana la soo gaadhayna waan eegayaa kolleyba ismalihi anigu golahan laftiisu muddadaa loo cayimay ama kacdoon dadka ha noqoto oo dee ilaahay meelu ka soo afuufo ama si kale ha noqotee noocan maanta ay u fadhiyaan wallahi inay joogi karay dacwadda aad sheegtay yaa gudbinaya ee leedahay Saleemaan dacwadda anaga gudbinayno xildhibaanadii la laayay ee la kursaday ee lagu laayay meesha iyadoo wixii in haddii ay nafsi loo daayeen ballan baan u leenahay